shir jiraaday maanta magaalada Burco ay ku qabteen ganacsatada ka soo jeeda dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya isla markaasna xoolaha ka keenta dalka Itoobiya gaar ahaan dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee keena seylada xoolaha ee magaalada Burco ayaa ka hadlay ganacsatada ka soo jeeda gobolka Togdheer oo sheegeen inuu ka dhacay lacag tiro badan ganacsatada ka ganacsata iibka xoolaha nool ee ka soo jeeda dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sidoo kale eedeyn u soo jeedisay wasiirka dawladda wasaaradda maaliyadda Soomaaliland iyo gudoomiyaha maxkamadda gobolka Togdheer ay ku eedeeyeen in soo taageen in la fuliyo heshiis oo kala duwan oo ay wada galeen ganacsatada lahayd xoolaha nool iyo waliba mas'uuliyiinta macshirka xoolanaxinta alcaan ee magaalada Burco waxaan halkan idaacadahan aan isugu yeedhnay caabasho ama dib magaalada Burco la yiraahdo naga haysta annagoo asal ahaan ka soo jeedna dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya isugu jira gobollo badan sida Qorraxay Doollo iyo Shabeelle cabatinkaas oo ah xoolo aan bixinay ama la naga deynsaday ama la naga qaaday 9 bishii 7 2014 xoolahaas oo cadadkoodu dhan yahay 229,000 qodobkaas oo ah nimanka la dhaho ilma Maxamed Xaashi Yuusuf Xaashi iyo Maxamed Xaashi ee maxjirka ka sameystay galbeedka magaalada Burco ayaa rabadaantii la soo dhaafay xoolo 4,900 neef oo aan qaatay lacagtooduna 229,000 dollar tahay xoolahaas oo kamid ah ari dhowr iyo 10,000 neef ah 2,000 neef oo Burco Hargeysa wajaale inta laga leeyahay dadkaas oo ka isugu jiray Soomaalida dhamaanteed kadib dadkii kale dhamaantii xoolahooda in la siiyo oo waliba dadka u badnaa reer waqooyiga dadka Burco degan u badnaa oo dadka deegaanka u badnaa in xoog ku qaata iyo nin ku qaata farsamo ku qaata dadkaas nin walba xoolihiisii laga hayn waayo la siiyay kadib lacagtaanadii ahayd 229,000 dollar oo lanoo qoray muddadeedii kadibna markay dhamaatay la siin waayo noloo diiday si cadna loogu diiday ayaanu waxaanu ka camanaynaa maanta dawladda Soomaaliland oo u dacwoonay oo u tagnay kadib markaan u tagnayna 3 bilood bay 2 bilood iyo 15 casho ayay noo qabatay 2 bilood iyo 15 casho markay dhamaatay dawladdii shanta guddiga nabadgelyada way soo xireen ninkii xoolaha na qaateena dhacay isagoo halkan loogu xiro xoolihiisa hantidiisa dawladda ay tiwaan ka qaadayna ayaa waxa artaas xoog iyo ku sidaaya awood u sheegtay gudoomiyaha maxkamadda oo dhaho canshuur iyo wasiir dawladda maaliyadda Cadaani anoo waxaan nahay dadka xoolaha laga dhacay muddo 12 bilood iyo xoolaha naga maqan yihiin gobolka kala duwan waan ka nimid wardheer qabdaare goday dhagaxbur dhanaan dhulkaas oo idil baan ka wada nimid dadka hadda bidixdeeda fadhiya iyo dadka midigteeda fadhiyaba waa dadkii ila socday gabdhahaas kamida marka waxaan ka codsanaynaa waxaan u sheegaynaa xukuumadda Soomaaliland inaan isdhici karin xuduud aan leenahay diris aan nahay halkan markaad ka dhaqaaqday ilaa ceel baxay marsin intay isu jiraan waad aragteen waxaanu doonaynaa inaan dadka dariska xoolo dhaqatada aan dib lagu dhax dhigin dawlad deegaanka annagana waxaanu ogeysiinaynaa cabasho inaanu xukuumadii sare gobolka maxkamadii macal wasiirkii Hargeysa uu soo galay oo xoolaha anaga aan aalankan aan waxba gacanta ku haynin inay soo farageliyaan oo safiirka u jooga Itoobiya ay la soo hadlaan xukuumaddanadana taasaan iyadana cabashada yaan u gudbinaynaa 75 bariya gobolka shanta amniga oo ugu dambeysay markay dhamaatay ayaa naloo soo qabtay oo shantii amniga ay soo xidheen ninkii wasiirka dawladda maaliyadda yaa Cadaani yaa farageliyay oo yiri ma qaban kartaan oo ma xidhi kartaan ninka iyo ninka gobolka jooga oo adduunka maxkamadda ugu sareeya inuu maslaxda wadanka iyo ummadda ayna midna danaynaynin ayaa sii daayay ninkii maalinkii ugu dambeysay aan u tagnaa oo daraata ahaydna waxaana la yiri waxa allaale waxa qabsan kartaan iyo waxa dili kartaan iyo waxa dhici kartaan waxaan leeyahay waxaan ahay qof tumara waxaan biilanayay ciyaal yar yar oo sagaala waxaan ku biilanayayna wax yar oo jeebla ku ahaa buu ahaa aniga layga qaaday oo aniga ma garanaysaa ariga waday haddaan wadayna waxa ila joogay dhowr iyo 30 ruux oo sidaas oo kale jeebla baan ahayn marka 12 bilood bay hantidanadu maqan tahay intaana dilaaliinta baa maxay ahayday noo dhigayay mashkaxin iyo jooga iyo ma garanaysaa wax hantidiini baan gacanta ku haynaa dawlad baa ma garanaysaa waxaana qaabilayso oo meel dawlad joogtay xoolaheena lagu qaatay suuq baan lahaa wixii wax garad ah ma garanaysaa Burco joogana wuu og yahay ama dawladda ahaado ama uqaalaha ama culimaha ahaad masaajid xataa waa lagu og yahay xoolaha naga marka ay sidaa tahay
maanaan taag waayin oo maanaan tabar waayin oo dawlad baanu nahay hantida Soomaalilandna wayna ag martaa aniga gurigayga agtiisa 7,000 oo neef oo Soomaaliland leedahay baad yaa daaqaysa waxaan doonayay oo kaliya wanaag inaan wadada ku mara waxaygana ku qaato haddii ay maxay ahayday xoog taalana dee ma garanaysaa wixii hadda ka dambeeyo bay taala haddii waxa nagina la siin waayo oo nu hadda sidaa marni ku tagno waxaan sheegaynaa inaan waxba ninna naga hayn karin oo nin walba geedkiisa u waaban yahay marka ninka maxkamadda jooga iyo maxay ahayd wasiirka madaxweynaha intaba waxaan leeyahay waxa la waxay ma garanaysaa ay idinku dhigteen baa dhici doona geestiisana gudoomiyaha maxkamadda gobolka Togdheer Maxamed Jaamac Cashuur ayaa isaguna dhankiisa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedeymahaas ay u soo jeediyeen ganacsatada ka soo jeeda dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxa jirta in maalin maalmaha ka midoo ay sharci ka dambeysay inay odayaal kilka shanaad ka tirsan yimaadeen oo ay ugu yiraahdeen kilka shanaad Itoobiya ay ugu yiraahdeen nin baa na dhacay ninkiina dhacayna waxa noo xiray barasaab ku xigeenka adiga barasaab ku xigeenkuna ninka xarigiisa way isku qabateen hanaga maada naga siidaayeen ninki waxaan ugu jawaabay waxaan ogaaday markaa arrinna dhex martay aniga iyo gudoomiye ku xigeenka barasaab ku xigeenka gobolka Togdheer oo ah in kiisaska madaniga dacwadda madaniga ee qofku wuxuu sheeganayo qof kale ay caado ka dhigteen in fara badan inay dadku geeyaan xafiiska barasaabka in fara badan kiisas aanu hayno ayay barasaabku ama barasaab ku xigeenku wala siinba barasaab ku xigeenku in fara badan dacwadaha hayno faraha la galaa sidaas ay ga magan yihiin mana oran karo mana dhici karto in qofku yiraahdo dacwad ma furan kartid meel sharci ka mata inka hadda ay keenaan processka sharci ee sharcigu waa iga baryayn ayaan u maraya ومحمد إبراهيم حسن محمد بريتش تلفزيون عالمي رويال برو